lagu jiraa habuna kala soo yareeya wixii shida shirkada noo soo degaan un shaqaysana abaartahan sidana moo shaahidnaga wada inkaan shilin haysano man shukri markii ay ka baxday sidaad arkaysaan dadka ayaa aad u sacbinaya iyagoo aad ugu faraxsan bal haddee aan ka codsado kaamirmaanka saaxiibkay inuu ku wareejiyo kaamirada Raage Omar oo barnaamijka halkiisa ka sii wada sida uu Raage sheegay waxaa soo socda Ustaad Axmed Naaji Sacad oo isagu ah fanaan isla markaana abwaan waa ninka heesta hal abuuray ee caawa halkan lagu qaadi doono waa kan Axmed Naaji Sacad oo kabankiisii wata ayaa markana gudaha soo galay oo kooxdana ay la socoto sidaad arkaysaanba gabdhahan quruxda badan ee ka muuqda qaabka Soomaaliga maryaha alindiga wata isku qaab eg hoos waa mara cadaana korna waa blue dabcan waa fahmi kartaan waa calanka Soomaaliya wiilasha qaabka Soomaaliga leh iyana tayga cad iyo waliba shaarka bluega watana waxay ku cadaynaysaa inay yihiin kuwo iyana matalaya calanka Soomaalida ku soo dhawaada live Naaji Sacad iyo kooxdiisa raalli ka noqda cillad farsamo ayaa dabcan dhacday sidaad arkaysaan waxaa halkan safan fanaaniinta Wait, no,
مقاعينا وبشوف مقاعودا مقاعيني ومقاعينا وبشوف مقاعودا قالوا يكايروبيو انت مقال انشوقي ناموس شرفيو مهنلات دوما ماموس شرف مهنلات دوما مدحويني وانا يا رب مهنلات دوما مهنلات دوما قالوا يكايروبيو انت مقال انشوقي ناموس شرفيو مهنلات دوما ماموس شرف مهنلات دوما مدحويني وانا يا رب مهنلات دوما مهنلات دوما مهنلات دوما مهنلات دوما مهنلات دوما kaasi wuxuu ahaa axmed naaji sacad iyo weliba fanaaniintii kale ee la socotay iyagoo runtii halkan ku soo bandhigay hees cusub oo isaga u sameeyey madaxweynaha inuu ku soo dhoweeyo dabcan axmed naaji sacad ayaa markanna mikrofoonka qaadan doona si halkaas uu erayo gaaban uga yidhaahdo axmed naaji sacad ayaan sugaynaa bal inuu mikrofoonka la wareego fanaaniinta reer london oo aad u diyaarsan qurux zaa'idana ka muuqatay iyo qaab soomaalinimo ayaa runtii sida aad arkayseenba halkan ka soo gudbiyey hees cusub oo loogu talagalay madaxweynaha iyo marti sharaftiisa axmed naaji sacad madaxweynuhu waad salaaman tahay adig iyo wafdigaad la socotid dadweynaha sharafta reexaw ka soo qayb galay ayagana aad iyo aad baan u salaamay walaalayaal waxaa jira wiilal 7 jir iyo 6 jir oo waddankan ku dhashay ingiriiska marka geeraar yar bay tirinayaan 2 daqiiqo ah waxaan jeclahay dadka halkan ku dhashay qoysaska ciyaar oo awlaadooda halkan ku dhalay inay ku daydaan labadan inay af Soomaaliga qoraan waa mahadsantihiin inay af Soomaaliga wasaafi بل إني دلفوقتاي عقلي قدوني لقصاري وهي هور أصو داشلي دقشني ساية دقهدي ودجستو دو تدن هذا أو دول ولالا تهو دوك كاشيسو داتك كاميراتانا ويستبجني ساية دبومتها ويسكلا دقان داين أبتكيني قوتي إسلا دورتا داد أسوكيني أبتكيني وادادي سن وانا دبتانا زباهدي سي واتاد أمتان تهدراتي دريق توسم سومالي والقاتا دي درجة إلهي نكي دوني يا هلا دكسي ملق بيالدي وهيد مسمويانا gabadhan oo runtii erayada walaalkeedii oo kamaal waa gabaygii timcad oo naxariista اليوم دعنا هاي وقالوا مدور لأ تبقبوا بيوي يرفع لو تتاهدر دي كان كقرن حاجة طبقة سرتين مدو مالو نافه ننكي نوك داشانه ديد أميراتان جادو هون تاشتاء لن ولاكي دوسدي إلى درجة سيواية فاذر كل ديتين دانا كابلن on donen inadensha dain ebkayen dabtuna modi duwada tashon wa uqasonayne dallo malaha akro
haddii loo kitaabtee labadan caruur